Booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay haweeney ku eedeysan dilka wiil yar oo ninkeedu dhalay. Ciidanka booliska saldhigga degmada Dharkiile ee magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ku eedeysan dil ay u geysatay wiil yar oo eedo ay u ahayd oo ninkeedu u dhalay. Taliska booliska gobolka Banaadir oo haweeneydan u soo bandhigay warbaahinta ayaa sheegay in haweeneydan ay si arxan darro ah u garaacday wiilka yar ayna jirkiisa ka muuqdeen garaacis xoog leh oo sababtay in uu geeriyoodo markii dambe. 13 bisha May sanadka 2023 abaaro 8 fiidnimo ciidanka booliska qaybta galbeed gaar ahaan saldhigga degmada Dharkiile ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ku eedeysan in ay si arxan darro ah u dishay wiil ay eedo u ahayd halka gabadhii wiilka la dhalatay boolisku ay ka badbaadiyeen. Gabadha ayaa dhaawacyo badan ku yaalaan jirkeeda waxayna u ahayd eedo aabahooda qabo. Eedeysanaha ayaa booliska gacanta ku haya waxaana la waafajin doonaa maxkamadda awoodda u leh si cadaalad loo marsiiyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee qaybta booliska gobolka Banaadir. Taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira dilka haweeneydan ay u geysatay wiilka yar isla markaana cadaaladda la horgeyn doono haweeneyda dishay wiilka ay eedada u ahayd. Aabaha dhalay wiilka dhintay iyo gabadha laga soo badbaadiyay haweeneydan ayaa la sheegay in uu ku nool yahay dalka dibadiisa isla markaana haweeneydan xaaskiisa ahayd oo ku biili jiray caruurtiisa.